waxaan ku jihaysanahay duulaankeenu sidii horeba maaragtay u socotay gulufyada ka dhanka ah kooxahan khawaarijta ah hadda waxaan ku jihaysanahay degmada Xarar Dheere haddii Allah uu dalo ogolaado iyo deegaamada ku xeeran insha Allah taala in badan waxaan u maleynayaa in la sugaayay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dhaqaaqa ugu horeeyo inaan maaragtay aan hore u galno haddii Ilaahay yiraahdo oo furinta aan ka sii xaadirno meeshaan ka sii socdaalno ma aha inaan ugu sawir galno anagana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sida sharafta badan oo walaaluhu noo soo dhaweeyeen inay noogu heeliyaan haddii Allah uu dalo ogolaado ayna garabkeena istaagaan si dhab ah waxaan aaminsanahay sida ay ayaga u walaaloobeen haddaan u walaalowno maantay in aan ka adkaa karno nimankaas waayo nin laga keenay baar dheer iyo hoosinkow oo luqadiisaba aanan garanin hermudug aysan garanin waayo waxa meesha jooga insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono haddii Ilaahay yiraahdo dhulkan ma lahan waxa hal wada ayaa u furan wadada u furan oo kaliya waxay tahay in ay soo dhiibaan wada kale ma jirto meel ay ku baxaan ma lahan in ay soo dhiibaan u furan insha Allah taala waana mahadsantiin dhamaantiin saxaafadda iyo dhamaan insha Allah taala si sharafta badan